waxaa dhawaan magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda ku soo dhamaaday xaflad lagu soo xiray ciyaaraha kubadda kolayga magaalooyinka wadamada bariga iyo bartamaha Afrika. Iyadoo markii ugu horeysay dalka Soomaaliya magaalooyinka gaalkacay ee Muqdisho ay ugu soo qayb galeen ciyaarahan isla markaana ay si wanaagsan uga qayb qaataan. waana markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay soo gaartay semifinal koob noocan oo kale ah. haddaba koobkan iyo waxa uu ku soo dhamaado waxaa faahfaahin ka bixiyay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdirashiid Xasan Xirse Bakin oo hogaaminaya ciyaartoydii ka baxday dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. magaalada Toronto ee dalka Canada ay dib ugu soo laabtay markii koobkaasi soo dhamaaday. waxaana la hadlay dad aad u fara badan oo ka qayb galay xaflad lagu soo dhaweynayay oo ka dhacday hool ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada. Gideera aan galnay kaliya ma galin sidoo faaraxooda u sheegay macnaha afar kaliya fool ma dhaqdo rag badan baa qorshahan ila waday anu haado hormood laakiin wax garab leysiinayay rag iyo dumar bay ahaayeen meel kasta ay joogaan ka codsanayna ama noqdaan xiriirka ama han noqdaan dadweynaha dadka xiriirka la shaqeynaya ama gacanta siinaya ama difoosyaasha waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya waxay u baahan tahay heel bay u baahan tahay heelka u baahan tahayna waxa weeye in kubadda cagta ha noqoto dhalinyaro aad u fiican oo u qiimo badan waxa laga heli karaa Yurub basketball-kana waxa laga heli karaa dhalinyaro quality leh oo runtii wacdaro ka dhigta haddaan example u soo qaato dhalinyarada halkan ka bixinayd waxaan xasuustaa ciyaaranay banooniga basket waa soo dhaafin weyna courtka oo supplier-keena waa soo dhaqaajin waay ama guard ha loo yiraahdo supplier tif Soomaaliya ama guard ha la yiraahdo waa soo dhaqaajin waay maanta waxaa haysanaa dhalinyaro halkan joogta oo runtii aan ku faani karno oo kamid yahay wadankan soo arkay noo soo xuleena macnaha macalinka oo noo soo xulay oo kamid yihiin Yusuf Hayno oo dhalay Cabdibaari runtii habeenkan fiirsanay ciyaaraha hadduu joognahaa Yusuf yar noo joognahaa oo Cabdibaari wiilkiisa ah banoonigaas dad badan madaxu soo dhafanaha. sidoo kale Mr. Bakin ayaa ka hadlay koob gacanta loo geliyay inta uu socday koobkan waxa uu ku macneeyay koob la siiyay Gaalkacay lagu siiyay oo lagu siiyay macnaha aniga la siiyay siinta la siiyay waxay organize-ka ka soo qayb galka iyo runtii qayb laxaadkan ka soo qayb qaadanay marka runtii farxad bay noo tahay Soomaaliya oo dhan bay matalaysa not only Gaalkacyo kaliya. gabagabadii waxa uu mahad celiyay Mustafa oo ahaa nin dhalinyaro ah oo wax ka soo xulay ciyaartoydii natiijada wanaagsan soo hooyay iyo guddigii wax ka qaban qaabiyay teamkan oo ku taageeray xagga maaliyadda oo ay ka mid tahay xawaalada amalkiisa baraysiya Dole Professional Abukaata Axmed Xuseen iyo Dr. Haashi isgaarsiinta Goals Telecom. Mahad Carabo Cali, Telefishinka Universal, Toronto.